Somali bale ninkii kala soocwado ninkii suxun u fakero ninkii kala saarnabo ninkii kala soocwado ninkii suxun u fakero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy Soomaaliya Soomaali bale aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy Soomaaliya Soomaali bale sareeda hadday ku to haddi siriyo dhibkaro tamanteediyo xumaanteed Soomaaliya Soomaali bale waa war degdega waxaa hadda 20 daqiiqo hor lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa wariye samafale Cabdi Maalik Muuse Aldoon waxa loo xirayna maxay tahay waxa tagtay xamar waxa tiri Soomaali baan ahay ama waxa taageertay hebel intaas ayaa loo xirayaa waa dhaqankii xuriyinta waa dhaqankii Soomaalidiidka qaarkii waxa laga yaabaa markaad maqashaan qof baa lagu xiray Hargeysa dad reer Hargeysa ama reer Burca ayaa xamar qof tagacay ama dad reer xamar ama reer Koonfur soo dhibaateeyay in markiiba qalbigiina uu ku soo dhaco waa nimankii Isaaqa waxa sameeyay maaha nimanka Isaaqa maaha yaan looga firsaa waxa weeye Isaaqu dhaqan bay lahaayeen dhaqan bay leeyihiin Isaaqu maxaa lagu yaqiinay waxa lagu yaqaanaa Isaaqa qofka Isaaqa martisoor ayaa lagu yaqaanaa magan ayaa lagu yaqaanaa dadka u tago way magan galiyaan way soo dhaweeyaan waxba la cunaa Isaaqu intaas lagu yaqaanaa qofka Isaaqa waxa lagu yaqaanaa martisoor soo dhaweyn ayaa lagu yaqaanaa oo lama dhihin taariikhda hebel aan u martiyo beesha Isaaqu dhashayo taqaanaa in martisoorna ama soo dhaweyn laakiin maalmahan maxaa maqlaysaa maalmahan waxa weeye carradii waxa rogay ukuso miiran baa rogay oo Isaaq sheeganayo waa tabta dhalinyarada soo baxday kulligood ay malaa Isaaq qabtiyaal u yihiin qaar Oromo ah qaar ilmihi Morgana wax saasa soo baxay oo carradii rogay oo magaciisa Isaaq ku dheelay oo Isaaq meel kaga dhacaya oo Isaaq ceebaynaya oo magacooda ku dheelaya oo cunsuriyiina oo fataalla ah waxa soo baxay dibka jir waxa weeye marka dadkii Isaaq way aamusan yihiin dadkii Isaaq ay dhaladka ahaa ee nasabiyadooda la yaqiinay way aamusan yihiin waxay ka aamusan yihiin cunug xunan aabba lahayd cunug xunan aabiin la aqooni abti u yihiin mid xuno ma taqaanaa ormaahoo ku soo koray dhulkooda mid xuno sheegata ah waxaasa ka buux carradii waxaasa qabsaday carradii waxa qabsaday ukuso miiran marka ukusadan la yaamaha in aan gabar reer suldaana oo eedadeeya oo habaryartay aan uga fahmaa inaan leeyahay waa garac maasay dadka leeyihiin qaarkood laakiin ani waxaan ogahay ukusin oo Isaaq ahayn gabar reer suldaana oo Isaaq oo ciidagalaas ay dhashay kaasa maanta soo dhan wuxuu la taagan yahay meelahaasi hebel waa walan weyn muqdisho ha dhacdo sida hal la yeelo erka ha laga soo boodo waxaas daldalayaan yab Isaaq dhaladka ahaa ee la yaqiinay ee nasabka ahaa ee Sooriyada iyo soo dhaweynta lagu yaqaan kama hadlayaan ninba inta ka baxayo la yiraahdo Ajax oo shaqtaroolahaas ka sheekeeya waa la xirayaa magaaladoodii ay u dhasheen Isaaq ay deganaayeen ee la yaqiin baa lagu bahdilaya waxa ku bahdilayo mid yaro ama garaca ama sheegata
ama abti u yihiin oo aabihii beri asoo askariid halkaa tegay islaanta ka dhalay carro kale iska jiro hadda bal hala weydiiyo cabdullaahi cukuse hala yidhaahdo warniyo haddaan nin ciidagalaad tahay ciidagaluhu waa in istaqaane bal aabbaha oo abtiri hala yidhaahdo isaaqoo dhan way og yihiin qof moog ma leh haddana maalin walbo markuu xamar caynaayo markuu dadka dhibaataynaayo nin qof isaaq ahoo dhaladoo ka hadlaa arki maysa dabeecadda markay isaaq kusoo korto kaliya waxaa weeye waxna dibadda maa dhigan docna kuuma yaallaan kolkaa daacad baa tahay haddana daawadaa tahay oona daacad baa tahay macnaha isaaqi gobonnimada lahaa ee la yaqiinay ee garxajiska lahaa ee arabka ahaa ee habar awasha ahaa ee mataqaanaa habar xabuusheedka ahaa ee la yaqiinay nasabka ahaa ma hadlayaanba macnaha waxa dhacaya kama hadlayaanba ilmihii fakinka hargeysa ku dhashtay iyo kuwii xarshin ku dhashtay iyo kuwii sheegatada ahaa iyo oromadii kusoo biirtay berigii dambe iyo qashaabiirtii oo dhan waxay falayaan magacooda ay ku ciyaareen kama hadlayaan waxaad arkaysaa mid ku dhahay ree hebel burca baa la yidhaahdaayo hebel burca la yidhahdaa hebel burco iyo hebel soomaali iyo haddaad maqasho iyo hebel togdheer iyo haddaad maqasho iyo hebel hargeysi iyo haddaad maqasho waxaas waxaa weeye abtarsiino dambe ma leh ninkai abtigii unbuu yaqaanaayo adeerkii ma yaqaano marka waxaa loo baahan yahay nimanka reer sheekh isxaaq ee nasabka ah in dadka magacooda ku dheelaya ay faraha ka qaadaan oo aysan u hiilin oo ay intay laba dhangeedood ku dhiftaan dhahaan waryaa adoo stupid annaga magacayna kuma ciyaari kartid waxay cabdimaalik muuse coddan waa nin soomaaliya waa nin nasaba waa nin reer sheekh isxaaqa caymo mudna waxaa weeye samafalo weeye dadka u gargaaraa soomaalinimuu aaminsan yahay xabashi nacay baa ku jiro intaasaa loo xirayaa markay cabdimaalik muuse coddoon ay mataqaan wax ka sheegay maysa arkin nimanka safka uu jiro ra-iisul wasaaraha etoobiya ninkan uu baxay ninka xamar u tegey magaaladiisa labaad u tegey nin soomaaliya u hambaliyeeyey dad masaakiinu wax tiray intaa maa lagu xirayaa waxaa laguma xirayo waxa weeye waa inaad kacdaan weeye shacabka soomaaliyed waa inay kacaan waa in adduunka la gaarsiiyaa in maamulka hargeysa uu noqday keligii talis inuu bahalagaleen noqday in dadkii sharafta laga qaaday in shacabka magacooda lagu dheelay in meeshu aysan waxba ka jirin waa in dadka loo sheegaa dadka reer sheekh isxaaqa nasabkaa waxaan leeyahay war dad taariikh fog lahaa tihiin dad lagu yaqaana soo dhoweyn iyo sooriyo iyo nasabnimaa tihiin war garaacintan iyo dadkan shishubka ah iyo oromadan hoostiina ka kalluumaysanaya magaciina ku dheeraya iska qabta isaaqow oo haddaad maanta rabtaan haddaad iga diidaan oo hadalkayga maanta yaraysataan wallaahi oo bilaahi maalin aad waxba ka qaban karnina ayaad ka shallaynaysaan ood leedihiin war ninkii daahir calasow berigii wuxuu sheegay run bay ahaayeen maxaa yeelay waxa maanta qofka ku soo dhacay soomaaliya waa nimanka isaaq way hallaabeen haye maba loo marti karaba maxaa dhacay oo garoonkooda markuu qaftay way xirayaan oo fanaan reer hargeysa markuu xamar yimaado way xirayaan nimanku ma islaan masayrsana islaamaha masayrsan xitaa wax subu quuraan may waa cunsuriyiin isaaqa xun dadkii dhalinyarada yareereed waxay aaminayeen may isaaq waa xun yahay isaaq ma xumee adeer isaaqoo dhibka haysta waxaa weeye cunug xunoo faataala ah oo daalima oy abti ama u yihiin ama iska sheegto ayaa wax uga dheeraya iskala qabamayaan waa tan leeyahay isaaqo waa isku xantaana micnaha iskuma xaqiijiyaan ma dhahaan waryaa stupid baa tee ka amuse hoostaasi un mataqaanaa ka wada hadlaa marka meeshan waxaa weye waxaa ka soo socda hargeysa waa foolxumo wey wax hargeysa ka soo socda wallaahi oo bilaahi oo tallaa hadalkaa meel iga qora waxa halkaa ka soo socda waxaa weeye siyaasad fog baa laga leeyahay reer dhan qabiil dhan oo soomaaliyeed oo lagu yaqaano sabnimo iyo gobonnimo iyo dadnimo oo layahay isaaq ayaa magacoodii lagu dheelayaa waxaana ku dheelayaa 4 wiil oon abtirsiino lahayn baa ku dheelayso oo haddaad tiraa waryaa ina ayaa tahay ku leh aniga ahaa waar ina hargeysaa la yidhaahdaa ina hargeyso magac ma ahee magacaaga sheego waariyadda ina burcaa la yidhaahdaa waxaas la soo istaagayaan war gabar fanaanada oo la yidhaahdo yurubgeenyo ayaa soo baxday xamar tagtay hees bay xamar u qaaday caasimadii dalka hees u qaaday oo tiraahdaa waa muraayadan ka dhex muuqanee maasha allah ma macaansataa hawadeeda meel dhaxaadka
maanyada sugunta liida kumaashaysigeeda ma ka heshaa madadaaladeeda maadi iyo qosolkeeda waaba caro ilmihii oo Cabdimalow hadda goor waxa la yidhi waar xabib halka baa layga hayaa halka asuku yiri waariyaada Suudaanta siyaad baa keenay anigu ma keenin markii ilmihii fakinka Hargeysa ku dhashay ku fakinka Burca ku dhashay wixii xarshin ku dhashay qashinkii oo dhan waxay sheeganayaan magacii bay sheeganayaan kulliga asagii taqaanay inuu aabay abtirsiina lahayn kulliga anigu nin saaqa baan nahay wala soo taagay magacii buu ku dheelaya kubi baa inta soo istaagu leeyin xamar waa dal qurin ah waxa weeye ma taqaanaa waa magaalo mugdi ah waa naagti heesta qaaday daahir cala soo heesta u dhiibay waa la xidhayaa waa la bahdilaya maxay qaba karaan waxay u keeni karaan dadka reesh xisaaqa bay magac ka xumaynayaan mooyee wax ay qaba karaan male yurubgeeyeen waa sax hees bay u soo qaaday xamar heestii waatan waad ku raaxaysateen waad dhagaysateen haddaad u baahan tihiin cunsuriyiinta waxaan leeyahay iminkana maxamed cabdullaahi farmaajo u soo qaadaysaa hees iminkana maxamed madaxweynaha Soomaaliya u soo heesaysaa calanka Soomaaliya u soo heesaysaa Soomaalinimada qiimo leh qof kasta oo Soomaaliya oo Soomaali magaciisu u yahay oo ku abtirso Soomaali dhalada nasab ah ani ma sheegay kuwa oramada ah bariid dambe nagu soo biiri qof kasta oo Soomaalinimada sanduuq ku ah Soomaalinimada loo dhamaanaya qaarkiin ay la tahay in Cabdimalik Muuse Aldon oo xiraan karo haddii qaarkiin ay la tahay inuu xiraan karo waa intusinaya ana intusinay daara cala suuba maxaan in xariga Cabdimalik Muuse Aldon ay ceeb ka raacdo maamulka Hargeysa waxaan ku tusinayaa in cunsuriyiinta xunka magaca Soomaali wato aan abtirsiinada lahayn waxaan dhan falaya xabashida u shaqeeyo inay qasaaraan tusinayaa waxaan qaadaynaa tilaabooyin qaadaynaa anugu jawaabayno xarig Cabdimalik Muuse Aldon ma raba inaan warbaahinta ka sheegto qaadayno laakiin dhawaaqaad maqlaysaa dadka degan Hargeysa degan Berbera degan Burco degan Xeerigaabo waxa loo socdo waa magaciini baa la xumaynaya maanta marqaati ka ahaada waxa maanta la xumaynaya waa magaciini waxa maanta la isku haysta magaciini weeye waxaad arkaysaa in odadan oo gow ah oo joogo Sarabangaal la yiraahdo intuu ka istaaga aqalka wakiilada dhexdooda oo wadaadna xildhibaana ka laga saaro kaara ka saara kaara oo u doodaya muxuu doodayaa oo ku leeyahay imaaraadku waa inay saldhig military ka sameystaan Berbera oo saldhigga military maxaa lagu qabanayaa maxaa Soomaaliland gelinaya colaadda waxaa arkaysaa soo taagan oo kale walaalaheena Ethiopia ama saf ugu jiro waxaan aaminsanahay oo doqon yahay qofka magaca qiimaha badan ee Soomaali uu kala sareeyo magaca Xabashi ama Ethiopian Cabdimalik Muuse Aldon wuxuu aaminsan yahay magaca Soomaali
soomaalinimo aaminsan yahay xabsiga looma sameyn adeer carbeedka in lagu xiray xabsiga looma sameyn xabsiga Cabdimaalig maanta galay waxa loo sameeyay rag baa loo sameeyay taariikhda dunida soo akhriya nin kastoo gobonnimo doona waa loo soo dhaawacay waa loo soo dilay sunbay u cabeen warqad bay u laqeen xabsi u jiifeen waa taariikh qoran ma aha wax ninka aad bedel kartiin Cabdimaalig marxaasoo maraya waa loo dilay karaa waa loo dhaawaci karaa waa loo xiri karaa sunba loo cabsiin karaa wax walba sameyn karaa waxa loogu sameyn karaa fiilka aaminsan Soomaalinimadiisa gobonnimo doonkiisa xabashi nacaybkiisa xukuumadda xabashida nacaybka uu qabo waxaasoo dhan ayuu Cabdimaalig u socodon dib u mari karaa laakiin anigu cunsuriyiinta waxaan leeyahay anigu raashix saaq kama hadlayo waxaan ka hadlayaa cunsuriyiinta aan abtirsiinada lahayn aan la hadlayaa kuwan abtirsiinada lahayn ee ku ka mid yahay waxaan leeyahay war waa leedka guuleysay ma dadka idin qaadi wallahi wax micnaa ku fadhidin male Cabdimaalig xurriyad buu heli iyo fanaaniinta kale ee Soomaaliyeed xamar bay tagi way heesi calanka Soomaaliya u heesayaan madaxweynaha Soomaaliya farmaajo u heesayaan caasimadda u heesayaan ku Muqdisho Hargeysa u heesayaan Burco u heesayaan Berberi u heesayaan Boorama u heesayaan Boosaaso u heesayaan magaalo kasta oo Soomaaliyeed Jigjiga u heesayaan Gaarisa u heesayaan dhul kasta oo Soomaaliyeed magaalo kasta oo Soomaaliyeed u heesayaan مسؤول كاستو Soomaaliyeed u heesayaan waa xur مسؤول kasta Soomaaliyeed aqoonyaha kasta Soomaaliyeed taageeri karaan qofka Soomaaliga xadud ma laha xad qabi ma laha waan ka gudubnay waan ka tagnay xilligii foosho xumeyd ee nala gumaysanayay ee nala baateynayay waan ka tagnay anagu xilligaas waa gudubnay xilligaas baateyn ka haysateen qabiilka nagu qofusheen ee aan ahayn liibaanayaasha lagu liibaano waa ka soo gudubnay waxaynu joognaa xilligii dhalinyarada waxaynu joognaa xilligii isbedelkii kacdoonka waxaynu joognaa xilligii karaamada iyo magaca soo celinay way ogaatay gabadha Burco joogto iyo wiilka Hargeysa joogo iyo kan jooga Muqdisho ka Gaarisa joogo inay Soomaali yihiin ay Soomaalinimada magac iyo qiimo ku leeyihiin way ogaadeen marka waxaad ka bedeli kartaan idinka haba yaraatee ma jirto haddaad Yurubgeeyo haysataan xamaray u heestay ama Soomaalimay u heestay oo rabteen inay xabasho u heesto Yurubgeeyo annaga hadda la safar waa garab taaganahay cid wax dhigi karta male kelmad cid dhigi karta male Cabdimaalig adoonna ma haysan kartaan mana xiri kartaan ceebaadi ka raacaysa asoo banaanka taagan inay hawshiisii wata sidoo hadda u shaqeynaya ka u shaqeynaya aanu islaamnimada ma qiimeysaan Soomaalinimada ma qiimeysaan gaala kuba saaladii soo daba dhigayaho markaas qalqalaysa markaad gaal cad ku aragtaan magaalada hayaay waa la soo galay hayaay gaalkii caday baa yimid hayaay xitaa hadoo ka socdo UN arta oo magaalada dhexmaray waxaad u malaysaa saas oo kala cararaysa haway caloosha kuwa ka bukee magaca Soomaali ku dheelaayo waxa leena waa laga adkaan doonaa Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa uu rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxa weeye heesahana way sii soconayaan iga qora maanta fursadeeda ugu dambaysan kelmadda ku leeyahay waxaad ku haysataan Yurubgeeyo maanta xamaray u heeso ma afar siddeed saac gudisna madaxweynaha Soomaaliya u heesaysa farmaajo u heesaysa wii gudisna calanka Soomaaliya u heesaysa kaamel iga qora waana sii wadaynaa fanaaniinta jooga Hargeysa waxa leenahay container ka soo baxa kaalaya magaaladiina caasimaddiina imaada xamar kaalaya mataqaanaa Gaarisa kaalaya meel kastoo Soomaali ay joogto kaalaya isaga soo baxa container ka yarka waa lagu fasaada ka gaaja ugu dhimanina waxa ma aha fanaan baa tahay wariyaa tahay uma baahnid qabiil uma baahnid maamul ho magaalo yaro 10 daqiiqo loo soo dhaxeeyo uma baahnid waxa u baahan tahay
soomaali weyn ba u baahanta dadku af yaqaano kugu dhaqan kugu diina u heesto la sheekaysato ku jecel intaas u baahanta reesha isxaaqna waxaan leeyahay waa reesha isxaaqow kuwaan abtirsidoo lahayn magaciina ku dheelaya maanta ka gaartaana maanta garaaca ma iska celiya war maanta magaciina ilaashada wallaahi oo bilaahi oo tallah sharaftiina waxay ku jirtaa iyo karaamadiina inaad maanta iska qabataan nin dhan oo abwaan oo xamar joogi jiro hebelkaas sidaa la yidhaahdo magac leh oo shalay waxaan arkayay gabadha yurubgeeya soo heestay gabadh u sodnay caynaya saaka mid kale abwaan aan dhahayo waxaan arkayay yurubgeeya caynaya waxaan arkayay magaaladii oo dhan ba soo waalatay yurubgeeya xamar u heestay hadda yurubgeeya asaaba u heesti lahayd ka warrama gacmaha ka shumi lahaydeen hadday yurubgeeyo mila sanaawi u qaadi lahayd hees ay ku xusayso gacmaha ka shumi lahayn soo maaha laakiin markii ay farmaajo u heesto deerkii markay jibiso soo maaha waa dhaqanka cunsuriyiinta waxa weeye waxaan leenahay free codon haa codon aynu annaga وكعدون شعب ويا كوباقيا كعدون شعب ويا قف كستو فري عدون ها صقرو قف كستا ها عمبارية مامولكا ليتا إيه هرجيسا قف كستا ها استاجو سيدين عبد الملك موسى عدون حدد رجينا حفظنا لها لحرنا هيدها عالمك دولتها عالمك للحريرو ميل والبا مامولكا قدون كأه حبشيدو الشقية اللي تهلا عمباريو
soomaalinimadu ha waarto soomaalinimadu ha waarto soomaalinimadu ha waarto shisheeye kalkaalka soomaalidiidka gumaysiga cunsuriyiinta iyo qaraacintan abtisiga lahayna ha dhacaano